Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta qaaliga ah meel walbo aad joogtid iyo waqti walbo ay ku tahay. Halkani waa Caamir Rable Channel. Waxaan ahay Caamir. Barnaamijka maanta waxyaabaha aan ku faaqidi doono waxaa kamid ah dhaqamada kala duwan ee ka jiro wadamada caalamka. Wadamada caalamka waxaa ku nool bulshooyin kala duwan kuwaasoo kala dhaqamo ah, diimahoodana ay kala duwan yihiin. Haddii aan tusaale u soo qaato wadanka Hindiya, waa wadanka labaad ee ugu tirada badan dadka. Wadanka marka laga reebo wadanka China, wadanka Hindiya waa wadanka labaad ee ugu dadka badan. Dadka ku nool wadanka Hindiya dhaqamadoodu way kala duwan yihiin, diimahooduna way kala duwan yihiin. Wadanka Hindiya waxaa ku nool muslimiinta ugu badan ee caalamka. Markii la isku daro 3 wadan ee qaaradda Aasiya ah, markii la isku daro dadkooda ee Caraba, dadkooda markii la isku daro waxaa ka badan muslimiinta ku nool wadanka Hindiya. Sidaas si la mid ah waxaa ku nool dad leh dhaqamo kala duwan iyo diimo kala duwan intaba. Tusaale ahaan oo kale dadka qaar ee ku nool Hindiya waxay caabudaan loodii caabudaan, kuwa waxay caabudaan qoraxda, kuwa waxay caabudaan waxyaabo kala duwan ayay caabudaan. Sida caadiga diimaha caalamka, Kirishtaanka, Hinduuga, Muslimka waa kuwooda ugu ugu caansan waaye. Marka waxaa jiro kuwa caabudo dabka caabudo. Maanta reaction-keena muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay Hindiya qaybteeda dabka caabudo. Waxyaabaha ay sameynayaan dhaqamo kala duwan ayay leeyihiin. Waxyaabaha ay sameynayaan waa waxyaabo cajiib ah runtii. Waa waxyaabo inaba aan caadi ahayn. Dadka caabudo dabka waxay sameeyaan, waxaa la iskugu imaadaa meel fagaaro ah, waxaa la shidaa dab. Marka uu dabka holco oo uu baso oo uu noqdo dhimbilo iyo dambas uu noqdo kadib ayay dadka ku kor soconayaan, ku kor lugoonayaan ayagoo cagacada. Waxba yaan warka idinka hor dhicin, ila daawada muuqaalkan. Maaragtaa odagaan ninkan madaxa wuxuu ku wada day, ninkan kala day. Mujida diriga wuxuu ku wada dabu ku wada. Waxay gudanayaan qayb ka mid ah waajibaadkooda diimeed ayay gudanayaan sidaan. Waxay caabudaan dabka ay ka dambeeyaan, waxayna u haystaan inuu yahay ilaahooda. Maaragtaa waa gubanaysaa. Subhanallah. Inaad tahay nin muslim ah waa nimcada ugu weyn weeyaan. Inaad tahay nin muslim ah Ilaahay yaqaano. Dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin waxyaabo kala duwan, kuwa loo caabudo, kuwa markay dhintaan la gubo. Alxamdulillah, haddii aad tahay qof muslim ah ee haysto diinta Islaamka, waa nimco weyn runtii. Ila daawa muuqaalkan. Nimcada ugu weyn ee qofka muslimka uu haysto waa islaamnimada. Alxamdulillah ala nicmati al-Islam. Tiri mashan. Kande. waa orday kan ilma yarka daxaax waa gubanayaan walaal. Hay naagtan cunugeena wada taadaad geesku ku aadinaya meesha dabka uu kulul yahay. Grup kala soo baxay. Hay dhulku qabsanaya dad. Ordol.
annaga ayaab aragnay. waxaa soo haray ninkaana soo haray. ninkaani waa nin dhiira, nin iga yaabiyo wallah reer meeshaan dee waaba ku dhaqnaqooya. inaad tahay qof muslina ee heeso diinta islaamka waa nimcooyinka ilaahayna siiya. nimcada ugu weyn waa nicmatul islaam. ilaahan uga mahad celinaynaa. ilaahay wuxuu dhahay la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid. marka nimcada aan haysano waa inaan ilaahay uga mahad celinaa. nimcatul islaam nimco ka weyni ma jirto. haddii ilaahay uu kaa dhigo qof muslina ee ku dhashay diinta islaamka kuna dhaqmay, haddii uuba ilaahay kaa dhigay, waxaad haysataa nimcooyinka middeeda ugu wanaagsan ayaad haysataa. marka waa inaad ilaahay uga mahad celisaa nimcada aad haysatid. maxaa yeele waad aragtaa waa cawaan, ma haystaan diin. waxay u maleeyaan ilaahooda, waxay u maleeyaan dabkay u maleeyaan ay ku kor soconayaan. dabkani muxuu yahay? dab ka weynaa aaqaro jiro soo maahan. naaraa jirto aaqaro. ilaahay hanaga badbaadiyo. marka ilaahay diinta islaamka hanagu sugo. muuqaalkani wuxuu ka mid ahaa muuqaalada aan ku arkay baraha bulshada kuwooda igu yaabka badnaa. maxaa yeelay haddii aad tahay qof muslina, haddii aad tahay, ilaahay wuxuuna siiyey nimco ayuuna siiyey. marka waa inaan uga mahad celinaa ilaahay nimcooyinka uuna siiyey. alxamdu lilah rabbi alcaalamiin. alxamdu lilah calaa nicmati alislaam waliimaan. waad aragtaa dhaqamada ay ku dhaqmayaan. waad aragtaa qaar waxaa jiro markii ay dhintaan la gubayo, dambas laga dhigayo. waxay aaminsan yihiin haddii dambas laga dhigo ee webiyada la raacsiiyo, in aakhiro zamaanka markii la gaaro ee uu buunka qiyaamaha uu yeero, in nafta ay isku imaaheen ayay aaminsan yihiin. maxaa yeelay waxay taagan yihiin haddii aan biyaha raacsiinay oo aan kala dirnay, siduu hadhow iskugu imaanayaa. biyaha ilaaha uumay, dabkana ilaaha uumay, bini aadankana ilaaha uumay. ilaahayna wax walbo wuu awoodaa, awooddiisa wuu leeyahay. marka ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa. alxamdu lilah nimcada islaamka aan haysano, inaan nahay qof dad muslimiin ah, ku dhashay islaamnimada, kuna dhaqmay. ilaahayna ayaan uga mahad celinaynaa. muuqaalkayga intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. haddii aad ku cusub tahay janalka, subscribe saar, gambaleelka furo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkayaga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.